السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسن أصحابي ميل كستو أد نغا داوانيسان كسو دوادا مid kamid ah qisooyinka cajiibka ah ee aan idinkugu talagalnay toddobaadkan. Inta badan qisooyinkeena waxaynu ka soo qaadanaa qoraaga reer Kuwait ee la yiraahdo Abu Dalal al-Hamrani qisooyinka cajaa'ibta leh ee uu qoray mid kamid ah. haddaba qisada toddobaadkan aynu soo qaadanaynahay waxay dhacday 2015 waa marka dil ku dhacayo maxkamad la isgeynayo la isxukumi doono laakiin qisadu way ka horeysay oo waqti hore ayay soo bilaabatay. haddaba qisadani waxay ka dhacday magaalo la yiraahdo Karkar oo ku taala wadanka Urdun. Karak la yiraahdo Karak waxay ku taala wadanka Urdun. Karak waxaa ku noolaa dad aad u fara badan, qaar ganacsato ah, qaar beeraley ah, qof walba waxbuu ka shaqaynayay. qoys ka mid ah qoyskii deganaa magaaladaas ayaa waxa ay ka koobnaayeen hooyo iyo aabe iyo 5 caruur oo ay dhaleen. 5 caruur oo ay dhaleen waxa ugu weyneyd gabar la yiraahdo Maryama. haddaba Maryama waa gabadha qisadeena ay ku socoto. Maryama waxay ahayd yaraanteeda qof aad u firfircoon, waxbarashada ku fiican, fahamkeedu uu aad u sareeyo. dadka Ilaahay fahamka aan xad ka lahayn uu siiyay ayay ka mid ahayd. dugsigii hoose iyo dugsigii dhexeba waxay ka baxday iyadoo kaalinta koowaad ku jirta imtixaan kasta oo ay gasho waxay keenaysay oo aan ku baasaysay kaalinta koowaad. dugsigii dhexe markii ay dhamaysay oo ay u diyaar garoobayso inay aado dugsiga sare ayaa aabaheed oo qof aad u adag dhaqanka ku adag gabadhu marka ay qaan gaarto dadka aaminsan ah inaysan guriga ka bixin ayaa wuxuu yiri ma ka baxaysid guriga, qof weyn baad noqotay, dugsiga dhexe waa dhamaysay, dugsi sare wax la yiraahdo ma jiraan, hooyadaaba caawinaysa, gurigaasa joogaysa, halkaasaad nasiibkaaga iyo ninkii ku soo dooni lahaa ku sugaysa. Allah yakhalik aabba waa ku baryaya. hablihii facayga ahaa wiilashii aniga aan ka sareeyay kulli dugsi sare aadayaan waa ku baryaya aabba dugsiga sare aan dhameynay. odaga wuxuu ahaa oday iska adag reer baadiye ah, dhaqanka magaalada iyo waxa kan aad uga fog, ma dhex galo dadka, isagoo ganacsi yar u haystaa ku filan qoyskiisa iyo waxay cuni lahaayeen noloshiisa. intaas wuxuu diidan yahay gabadhan qaan gaartay inay baxdo oo ay magaalada aado iskuul dugsi saraan aadaya tiraado waxaas uu ka soo horjeedaa. see u bariyeysay markii dambe wuxuu yiri okay dugsiga saraa dhamaynaysaa, guriga imaanaysaa. waayahay dugsigii sare gashay, way waday kaalinta koowaad imtixaan kasta kaalinta koowaad ku dhufanaysaa. waa qof Ilaahay uu siiyay faham cajaa'ib ah. dugsigii sare way dhamaysay, waxay noqotay magaaladii imtixaankii markii la keenay number 1. dugsiga sare oo dhan waliba magaalada iyo gobolka magaaladaasu kaalinta koowaad gashay. arday saas mutafawiq ah oo aqoontiisu heerka marayso jaamacad diidaysa ma jirto. jaamacadii oo dhan iyaday soo dalbanayaan. laakiin mushkiladdu waxay ka taagan tahay sidee jaamacad lagu aadaa. odaygii cajiibka ahaa ayaa guriga jooga oo aan waxaana dhan ogolayn. dugsi saraa waxaa looga soo qaaday si Ilaahay ogyahay. mar kale ku laabatay markay dugsiga sare dhamaysay aabbo waxay tiri waxaan doonayaa inaan jaamacad aado. laa xawla walaa quwwata illa jaamacad war ma waalate ma anaa rabtaa ragga
asaagayga markaan la fariisto in la yiraahdo gabadhaadi meelahaasi maraysay tani maya ma jirto raxas dugsi sare waxaan ku ogolaaduu yiri cunahan isqabtay iska daa wax kale oday caadi ba oday imtixaan waay gabadhuna siday waxbarashada u jeceshahay say mutafawiqad u tahay oo ay wax walba u baranayso iyo sida odaga mar walba uu niyada uga dirayo ayaa waxay noqdeen laba arin oo aad u kala fog jaamacadihii way doonayaan gabadhii odagii waa ku dhagan yahay waxay samaysan male hooyadeedii u tagtay oo waxay tiri hooyo aabba igala hadal jaamacadda aniga dhexdeena inaan gala ma rabay tiri odagaan waa oday qalafsan adiga iska barbari aniga dhexdeena ma galaayo gabadhiisa soo matidaha adiga la waxay samaysay aqooweys markii dambe way fakartay waxa ku soo dhacay adeerkeed marka aabaheed wuu ka weeyay inta badanna qofka kaliya uu wax ka maqlo waa ninka ka weyn oo walaalaha ay yihiin adeerkeed gurigiisa tagtay adeerkii bariday war adeero waa ku bariyayaa waxbarashadayda meel cidlaayana uga tagin waad u jeedaa shahaadooyinkii aan soo qaado dhan number 1 meesha numberka koobaad waxaan ahayn ma haysto jaamacadihii dhan waa isku kay dagaalayaan adeerow aabba iga bari markaan kaliya 4 sano jaamacadda aan soo dhammeeyo intaas iga bari odaga marka adeerka ah markuu la hadlo aabaheed wuu ixtiraamaa ka weyn yahay waliba da' badan uu ka weyn yahay reerkoodana isagaa ugu weyn odagan adeerka ah ugu weyn waana oday sidoo kale oday u ah reerka qabiilka oo dhanna wuxuu u yahay nabadoon u yahay odagii markuu gabadhii arkay say u rafarayso oo gabdhihii waxay la kaashatay adeerkeed dhalay iyagu guri joogtay iska yihiin dhaqanku waa iska saas laakiin iyagu waxay leeyihiin maadaama annagu aabbow waxbarashadu ay sidaa naga noqotay gabadhan adeerkeen dhalay waxa noo baratee markan kaliya aabaheed kala hadal waa ku baryeedna intay ka mareen odagu marka waa soo baxay gabadhii soo kaxeeyay odagii asaga waa la isku cajiimay waa la ismari waay ma garanaysaa si kasta inta la yeelay odagii markaa ninkiina war kama diidi karo waa walaalkiis ka weyn wuxuu sameeyana ma yaqaano meel halis ah ka soo martay gabadhii markaas xujuu la yimid oday caadi maaha oday caadi maaha xujuu la yimid wuxuu yiri 4 sano ee jaamacadda waan ogolaanayaa laakiin shardi baa ku xiran muxuu yahay shardiga 4 sano iyadoo jaamacadda ku jirtay haddii nin wanaagsan iga soo doono inay guursanayso jaamacadda halka qalinka ku dhigaysaa rabaa maxaa la sameynaa wax la sameyn karo male meel looga laaban karo male odayga saasuu tanaasul ku sameeyey waayahay yaaliin odagii adeer ahaa wuxuu yiri gabadhii waa inaa aqbashaa haddii aad rabto waxbarasho okay tiri waxay ku ducaysataa marka ilaahayow nin fiican ha ii keeni intaa jaamacadda dhiganayo jaamacaddee marka ay dalbatay kuliyadda adabka luqadda ingiriisiga oo kuliyad la yiraahdo waxay aad u jeclayd luqadaha ingiriisiga waxay rabtay inay aad uga hadasho jaamacaddii demaayada diidaysa jaamacadihii soo dalbaday ku jirta markiiba way qaateen jaamacaddii gashay stabtii waaye haddana number 1 nakii dhaqa waa yaabeen macallimiintii jaamacadda yaabay fahamka ilaahay uu gabadhaa siiyey siday ay aqoonta ku tahay waa la yaabay ilaahay amarkiisa nin fiican oo wanaagsan oo odaga ku qanco odagaaba maxna socota nin kasta ma aqbalay moogta dhowr nin way soo dooneen laakiin qolo oo isagu anfacaysa ma ahayn nin kasta oo yimaado imtixaanu ka qaadaa inta la fariisto ayuu imtixaan ka qaadaa su'aaluhu weydiiyaa markaas wuxuu leeyahay kan waa allow sahal
وحجر معها يقوض لي كان قبل ديدو وما قال ما يقوض أيضنا الحمد لله ترى لا فاتحة سي آخر ستاو جامعة دي وارد مايس أوفر سدار جامعة دي ويد مايس جامعة دي مركز دمايسي جامعة دي هي جامعة كله كل وحي أصوب بندقين وحبرا شفرية هيرك اللباد هيرك سدحات بفري قف عادية متيدا للذي ماسترك إيه دكتوراه مارتي PhD دي وحكن إيه جامعة هيرك اللباد هيرك سدحات ومارتي شهادوين كودا فري كل جانب صادقة جامعة كوباهن ودكا كوباهن عد كستا كوباهن شركتها واوين عالمكا كوباهن ما حتى هذه قف عادي متيد بني آدم عادي انت عم وحبريني وحلا ميدا متيد حفلتي مركي جامعتي اللي سميي مين يجي يردن معلمينتي وكور رميان وحفلتها كسو قيب قلي نمبر 1 سيدي كسو جامعتي يردن كالنغوتي مركي هورا قبل كلية كحريف تبي سيكولي هذا أردن أردن أي نمبر 1 جامعتي كالنغوتي والله يا قبر عادي معه waxbarashaduna waxay u jeceshahay si waali ah guurka iyo waxa kan iyo waxay leedahay horta waxa kan aan meel soo saaro bini aadam wuxuu barto inaan meel saaraan rabaa shahaado jaamacadeed mid ugu sarreysa inaan soo qaadaan rabaa sidee marka odaygii adeer loo soo bariyay jaamacadda 4 sano loo dhihi karaa hadana dhowr sano oo waxa hartay maartay shahaadadii labaad iyo tii saddexaad hartay xagee ka socodee sheekadaas mulwal kala haysta bogta mushkilad kala haysta way soo laabatay aabihii ku soo laabatay odaygii marka waxay ku tiri aabow waa dhameeyay jaamacaddii haye maxaa kaloo haddana soo wadaawi markaasuu waxay tiri shahaadadii labaad ee jaamacadda iyo tii saddexaad dhiban macnaha jaamacaddu weli waa qabyo ogow war waxa kan maxay ahayd imtixaanka war haddaan odayaashii meelaan la fariista laa gabadhaadii halkaasii socotay gabadhaadii meel heblay ka soo muuqatay joornaal hebelaa lagu soo sawiray war aniga ceeb xaggee istaagaya dadna waxa waaye shuhradoon waa caannimo iyo waxaas iyo ka helaan odagaan caanaa sheegtay wax u dhow xataa ma la rabo qamiiskiisaa la wataa cigaalkiisaa u saaran tusbixiisaa la wataa sheekadaan dhan waa dhibay asaga si kasta inta loo dhigay odayga si kasta inta la yeelo nag waa diid say u bariyeysa uu haddana wuxuu yidhi okay asagaa iska yidhi okay laakiin wuxuu yidhi markaa shahaadada labaad soo qaado shahaadada saddexaadna soo qaadin wallay ka tahay wax kale iilamama imaan kartid waayahay dheh heshiiskaasaa la galay odaygii waa iska adkaystay muxuu samaynaa hawshii way socotay shahaadadii war soo qaaday tii labaad tii saddexaad soo qaaday markay tii saddexaad soo qaaday mid ka mid ah kambaniyada waaweyn ee Mareykanka iyo Urduniyiinta isla leeyihiin ayaa markiiba shaqo u soo bandhigay oo waliba lacag waali ah lacag aan caadi ahayn oo qof ku shaqeeyo midda ugu sarreysa waddanka ayaa loo soo bandhigay waa gabar PhD haysata oo dee mutafawiqada oo aqoontu dee wax la bartay maaha waxeeda waa wax ilaahay uu siiyey waaye hibo ilaahay uu siiyey waaye interviewgii aad ama waraysigii shaqada odaga uma sheegin isla markii interviewga laga qaaday niman cadaan ah ayaa ka qaadayay way yaabeen adabka ingiriiska luqadda say ugu hadlayso sida ay wax u baratay waa fantastic wax cajiib ay noqdeen wax lala yaabo gaalada yaa gacmaha madaxa saaratay
ayagaa laga badiyey ingiriiskii ay ku hadlayeen wuxuu noqday jaafa jiliq marka midka ay ku hadlayso iyo erayada ay isticmaalayso suugaanta ingiriiska iyo adabka ay kala soo bax waa ruuxu maxay ahayd ruuxan maxay ahayd war carab ma ahayn middan maxay ahayd war waa iska shaqadii horaa laga siiyey waxaa layidhi bisha markay dhammaato 15 bisha dambe soo xaadir weliba waxaa tahay maanajarad qayb dhan ayaa loo madax looga dhigay waxay markay experience shaqada dhowr bilood wadana waxay isku xukumi doontaa xafiisyo ku yaala Dubai iyo Sacuudiga iyo Carabta oo dhan meelaha shirkadda ay ku leedahay xafiisyada meelahaas oo dhan ay xukumi doontaa war kabar caadi ma gabadhii hawshaasa lacagihii ay qaadan lahayd iyo wixii hor yimid yaa sugaye macallinkii yaa sugaye aabaheeda waa la isku dhib qabaa meeshaan nin walba haddii ilaahay uun meel u toosiyo meelaa ka khariban wax isku ka raacaya waa yaryihiin sidee uga dhaadhicin kartaa marka aabow haddana hawlaan bilaaba waxay tiri markii horeba saa u baryeysay shahaadooyinkii kale waa kii uu kugu ogolaadee lacag waaliya haddaa u sheegto isagana tiraa dukaankan iyo waxaan aad meelaha ku gadayso iska joog adiga iyo hooyo iyo guri qasri aan idiin dhisayaa kana idiin samaynayaa beero waaweyn aan kuu samaynayaa xoolaan kuu gadaya waxaasaa laga dambeeyaa odaga caadi maaha geel iyo waxaas iyo ari iyo in la yeesho iyo laga dambeeyaa marka alaabtaasay waxay tiri maskaxda uga qabso odagii markay sheekadii u keentay waaba xanaaqii ugu weynaa la xanaaqi wariyaa wuxuu yidhi guriga kama bixi karti maanta laga bilaabo cidaa iisoo kaxaysan karta hadda kadibna male sidee ku aqbali karaa aniga gabadhaada niman meelaha la fafadhido la shaqaynaysa war ceebta intaas la eg war aniga sidee waxa kan aniga aan maaragtay ugu noolaana adduunkii adduunkii istabagediyey war sidee waxu jiraan war anigoo reerkaasa oo oday dhaqameedkii reerka iyo dhaqankii wixii ilaalinayay sidee gabadhaydu ay meelaha u fariisanaysaa waryaa waxaas war aan kaa yeelaya maahane guriga fariisay gabadhii waa iska oysaa way niyad jabtay cid wax la qabanaysa male waxay samaynaysa male shaqadii way dhaaftay nimankiisa ula soo xiriirayeen email u soo dirayeen markii dambe waxay jiray shaqada mar rabo waxay isleeyihiin iyaguna shirkado kale idinka shukaansaday gabadhiyo waa la qaatay isleeyihiin markaasi waxay leeyihin war waa kuu badinaynaa lacagti war waxaan ku siinaynaa waxaasaan ku siinaynaa kanaan ku siinay nag ha sheegin gabadhu dee meel kale laga haystaa maayadaa lacag iyo waxaan iyo ka hadlaysa markaasaa gabadhii iyadoo joogtay waalatay qisada marka magaceeda waxaa la yidhahdaa tacliintaydii inaan horumar ka gaaro ama dhimasho aan ka xigaa waayo qisada marka meesha halista ay ka imaanayso oo khatarta ay ka imaanayso waa halkan gabadhiisay guriga ugu xirnayd bil 2 bil 3 bil 4 bil sanad markay guriga ku xiran tahay ayay isku dhex yaacday gabadhii waxay samaysan male odagan waxay ka qaban karta male say maalin maalmaha ka mid u joogtay qolkeeda ugu xirnayd ayaa waxaa ku soo dhacay kaalay odagan ma ka takhalustay adduunka wax kasta waa la arkayaa wax kasta waa arkaysaa odagan macangaga ee horumarkaaga iyo nolosha dhan hor istaagay oo asaga inaad dhibkaan ka saarta diidan waaba oday macangagee maa ka takhalustay sidee uga takhalusaysaa marka gurigiisa qolkiisa iyadoo hagaajinaysa maalin waxay ku aragtay baastoolad odayaashan marka oo maaragtay badawiyiinta oo reer baadiyaha ka carabta inta badan way hubaysan yihiin hubay haystaan hubkaasu marka dawladdu way u register garaysaa dhaqan camale u haystaanba hubka qaar qoryo haystaan
qaar bastooladay haystaan mid walba waxbuu haystaa odaga marka bastooladu haystaa dhowr xabadood oo dowladda ku ogtahayna wuu haystaa oo ugu jirta bastoolada hadhow hadday wax dhacaan wixiisu waa register garaysay marka bastooladina meelay u taallaa rasaastina meelay u taallaa xabadihii meelay u yaalaan rasaastii soo qaaday bastooladina way soo qaaday qolkeeda meel ka mid ku qarsatay odagu dee mar walba ma baaro markii xaaja xumaato ama meel uu aadayo waxaasuu qaataa ilaa amarkiis marka waayadan kuma soo dhicinba howlahaas howlo kaloo iskaga jiraa hawsheedii siday ku qabanaysaa marka waxaa ka go-an odagan inay ka takhalusto bastooladana sida loo rido iyo meel laga maro ma taqaano dee laakiin waa gabar wax baratay adduunka hadda waa horumaray wax kasta oo aad doonaysid inaad samayso YouTube iyo meelahan haddaa gasho ninaaba soo dhigtay oo lacag ku raadinaya saana bastoolada la isugu rakibaa noocan markay tahay saas waa saasaa loo ridaa saasay xabadda u dhacdaa saasay qofka markaa nagta uga saaraysaa waa meesha lagaa tusaaya diyaaradda inaan wadaan raba haddaad tiraa YouTube-ka ku qortid badhaa kaa la keenayaa sida diyaaradda loo wado badhanada la taabto diyaaradee rabtaa ma boynaa rabtaa inaa wadid ma mid kalaa rabtaa airbasaa rabtaa midee rabtaa adiga wadaa rabtaa meesha ku qoraysaa wax walba marka hadda adduunyadii oo dhan ninaaba soo dhigaayo meesha ka arkaysaa bistooladii say u fiirsanaysay rasaastii sida loo geliyo waa gashatay waa cabaysatay way dhigatay sida ammaanka loo furo sida loo xiro sida wax loo toogto wixii oo dhan YouTube-ka ka baratay waa sida qoraagu leeyahay waa war xaqiiqo ah oo laga helay booliiska waddanka Urdun ayuu leeyahay maalin maalmaha ka mid ah odagiyo guriga jiifa maamadii suuqa aaday iyo ilmihii qaar oo israacay laba gabdhood oo iyaguna qolalkooda ku jiro maartay iska jiifa ayay bastooladii inta soo qaadatay qolkiisii soo furtay isagoo gadi cad u jiifay u timid iska hurdaaye meel fiican baasho u marayso qooradu cirkaa marayso qarraqda ku haye gabadhii ayadoo jaraynaysa bastooladii inta soo qaadatay odaygii aabaheed ahaa ayay madaxa nagta uga dhigtay hal xabbay ku dhufatay kadibna way soo baxday way xaraysatay wax maqlay male gabdhuhu ma wax kale ku mashquulsanaayeen wax hal mar hadday dhacaan dib lama ogaan karo odaguna maba nuuxsaninba sidiisa isagoo u jiifaa naftu ka baxday bistooladii xaraysatay meelay ku qabaysatay qolkeeda iska gashay hooyadii oo suuqa ku maqnayd iyo kuwii kala yimid alaabtii meesha dhigtay qolkii odagay ayadu ay wada deganaayeen galay maagtay odagii waxay aragtay sariirta saas u yaala dhiig sariirtii oo dhan ah hal maray qaylisay waa war maxaa dhacayay war odagii maxaa ku dhacay waa la soo kala orday maryan marka waxay ka mid tahay dadkii soo ordaayay mogta dadkii dhan waa la jaray allah maxaa dhacay booliiskii alla waa booliiskii ay yimid booliiska guriga yaa soo galay yidhaahdeen cid soo gashay male ma naqaano wax yimid male yaa joogay guriga gabdhihiisa iyo isaga bas sidee ku dhici kartaa marka yaa dilay odagaa yaa wax kala dhexeeyeen xaaskiisaa la waraysta ma waxaan ognaha male odagii walaalkiisa ahaa iyo reerkii iyo qabiilkii iyo wixii dhan waa la isku yimid gurigaa lasoo buuxsamay bastooladii booliisku baaritaan ay sameeyeen xabadda ninka dishay ayaa la helay xabaddu waa xabadihii isaga u register garaysnaa markaasaa layidhi bastooladiisii hala raadiyo qolkiisii meel kastaa laga raadiyay bastooladii iyo xabadihii male yaa dilay marka yaa guriga soo galay bastoolada qaatay weli lagama shakisanaa guriga intiisa kale iyo gabdhihiisa iyo lagama shakisanaa sheekadu waa sheeko isku cakiran moogtahay ilaah amarkiis booliiskii markaa
qaar ka mid a oo baarayaasha ah waxay yidhaahdeen gabdhaha aan mid mid u wareysano waxaa laga bilaabay gabdhaha yaryar inta guriga joogtay 3 ay ahaayeen iyo odaga gabadha weyn hanoo kaalisaa layidhi labada gabdhood yaryar lagu bilaabay mid ka mid a marka waxay tiri aniga bistoolada aabbahay weligay ma arkay laakiin waxaan arkay Maryama gabadha dhaga weyn maalin aan isha ku xaday YouTube-ka iyadoo fiirsanaysa bastooladaha sida la isugu rakibo bastoolada iyo xabadda iyo sida la isugu rakibaa nimankii marka baarayaasha ilaa u baxday marka maxaa ka dhaxeeyay dhaheen Maryama iyo odaga waa diriirsanaayeen tiri Maryama waxay rabtay inay shaqo aad u kan inay aad u dhowr jeer isku dhaceen kan xogtii dhan booliiska siiyeen booliiskii Maryama marka way kaxayeen waa la soo wareystay way jaraynaysaa iyada qofkii oo qof dilay ma qarsoomayo waxba uun si ka noqonay waxay raadeen dhigeyso waa kula soconaa iyadoo marnaba isma lahayn YouTube-ka aa fiirsanayso iyo hawshan aa ku jirta qof bini aadan ku arkay isma lahayn marka gabadha ayirtaa meel ka soo baxday ayaa kiiska hadda maaragtay il u noqotay booliiska iyo baarayaashii markaasaa gabadhii waxaa lagu yiri dhageyso YouTube-ka mobilkaaga keen mobilka la keenay YouTube-ka marka wixii aa gali jirtay wixii oo dhan waa la ogaanayaa waxaa la helay marka bastooladii iyadoo maaragtay fiirsanaysa wixii ay fiirsan jirtay oo dhan la soo saaray markaasaa la yiri bastoolada ma fiirsan jirino marka hore way inkartay laakiin markii la soo baaray ayaa loo keenay waxa la yiraahdaa kana programka fiirsan jirtay markii dambe waa lagu qayliyay waa la handaday gabar yar iska ahayd waa dhinacyada laga galay markii dambe waxay tiri anaa dilay aabahay maxaa u dishay wax kale oo sameeyay ma la tiri wax kasta waa iga hor istaagay aniguna hadda guursada ma rabin aniguna shaqaysto oo maaragtay waxbaan soo bartay waxbarashada iyo khaatib billaah aan ku soo bartay dugsi oo saddex kaliya oo ogolaa dugsiga sare intaas oo rafaada ka maray jaamacadda adeerkay baa saan sameeyay wuxuu dhan saasay ku dhaceen marka ninka anaa ka takhalusay tiri anaa maaragtay anaa dilay tiri markay qaratay waa la soo qaaday shoog dadkii oo dhan hooyadeed iyo walaalaheed iyo wixii oo dhan waa la shoogay waa la yaabay meel loo socdo iyo meel kale la kala garawaan gabadhiisa dishay ayadaa qiratay bastooladii ay keentay xabadii la tiri xabadii laga waayay inay ayada ku dhufatay sheegtay sidii u dishay sheegtay way ka sheekaysay waa la soo qabtay maxkamadii la keenay maxkamadii markii la keenay qaadigii wuu yaabay sida wax dilka soo ku dhacay iyo waxa la isku dilay moogtahay dil waa la isdilaa wiil aabiis uu dilaa aabo ilmigiis uu dilay waa la arkay wax walba waa la arkay gabar waalidkeed dishay iyada uu ma horeeyay waa la arkay laakiin dhacdada iyo waxa la isku dilaayo ayaa wax la yaab la noqotay oo qisada ka dhigtay wax aad martay dadku ay wala yaabeen marka qoraagu wuxuu leeyahay 2015 ayaa maxkamadda la geeyay gabadha waxaa lagu xukumay dil toogasha tacliinteedii ama mawdkeedii waa qisada waxa ay ku baxday moogtahay halkaas marka lagu toogtaalay markaas qisadii waxay noqotay mid diiwaanka u gashay booliiska waxyaabo la yaabo noqday marka sidaas ay marka hawshii ku dhamaatay qisadiina intaas ayaan ku joojinaynaa akhyaaray meel kasto aad naga daawanaysaan adikuna fakar iyo aragti fara badan baa qisooyinka ku soo qortaan fadlan soo qora qisadan waxa idin kaga baxay iyo waxa aad maaragtay aad ka ogaateen like gareeya oo share gareeya qisada haddaad ku cusub tahay channelkana subscribe-ka ka iloobin channelkeena inta aan mar kale kulmayno iyo qisooyin kale nabadgelyo